السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا قيبتي لبعض برنامج كي إنه مقعد درنيات هذه برنامج كاسو كشكينيا تاريخ الصومالي ذا وربله ولاية برلمات كسر هذا برنامج كا مانتا ومالي ويلي مانتا مدحين بناني مانتا ومالي ويلي مانتا مدحين بناني مانتا ومالي ويلي مانتا مدحين بناني فضلا هداكو عصبتها غيبتي كوات صوت داو si aad macluumaad badan uga soo fahantiin reerku sheegtay oo loo yaqaano qaansoolidii midmadabeed ayaa waxay qabsadeen dhammaan dalka Masar iyo Suudaantii laga haystayba boqorkii biyaankii ee reerku sheegtay ayaa qabsaday dalka Masar oo dhan oo la wareegay xukuumadii faraacinta ee reer Masar waqtigaas oo qolyihii reer Liibiya ay madax ka ahaayeen ayuu dhammaantood xasuuqay boqorkii reer Kusheyti ee biyaankii ayaa markii uu qabsaday Masar waxa ay faraacintii la galeen heshiis si ay Kushiyiintu u sii xukunto waxana uu boqorkii reer Kusheyti isku magacaabay qoraxdii ifaysay ama boqor ama ilaah ay caabudi jireen diimaha xaggooda waxaana sidoo kale jiray boqorro badan oo ka soo baxay reer Kusheyti waxaana kamid ahaa boqorkii Taxaaka ayaa waxa uu ahaa boqorkii ugu taariikhda dheeraa dalka Masar boqorkii reer Kusheyti ee Taxaaka ayaa waxa uu ahaa boqorkii ugu badnaa ee dhisa ahraamta reer Masar taasoo ay ku sharxan tahay taariikhdii ugu weyneed ee dalka Masar ahraamaha ugu waaweyn ee dalka Masar Taxaaka oo xataa kula dagaalamay Assyriankii iyo Babiloniyiintii ku guumaysanayay kuna bahdilayay reer Israa'iil ayaa ka saaray oo ka xoogay Israa'iiliyiintii lagu guumaysanayay dhulkooda 321 sano ka hor dhalashada Nabi Ciise ayaa waxa soo galay dalka Masar Great Alexander oo u dhashay dalka Macedonia Great Alexander oo dhisay magaalada Alexandria ee dalka Masar kaas oo xoog kula wareegay dalka Masar Great Alexander ayaa waxa uu ka saaray reer Kusheyti isagoo ka helaya garab Bershiyiintii iyo Assyrianiskii intaba oo ay isla ahaayeen Semitic tuuga marka ayaa reer Kusheyti dib ugu laabteen dalka Suudaan iyo magaalada madaxdoodii hore ee Nabata markay Giriigiintii ay qabsadeen dalka Masar ayaa waxa ay ku arkeen reer Kusheyti iyo dadkii madnada ee xukumayay dalka faraacintii ee Masar ayay waxay ugu yeereen Abatoobia taasoo micnaheedu tahay wajigii madama ama wajigii gubnaa halkaas oo ka yimi magaca Ethiopia Alexander Great ayaa markii uu Masar qabsaday waxa uu sameeyay oo uu tixgeliyay faraacinta Masaarida boqortooyadoodii waxaana uu sameeyay Cleopatra oo ahayd boqoradii ugu dambeysay ee faraacinta inkastoo Cleopatra xagga dhalashada ay ka soo jeedo Greek iyo Masar oo ay hooyadeed ahayd Greek xagga aabaheedna ay ka soo jeedo dalka Masar taasoo uu ku tixgeliyay inay faraaciyada Masar sii socoto inkastoo Greek ay gabadha Basra ay abti u ahaayeen kadib waa tii Romaaniyiintu soo dhexgaleen kuwaas oo ku soo duulay dabadeedna ay Cleopatra halka isku dishay oo ay Maska isku dishay waxaana dalka Masar isku bahaystay Romaaniyiintii iyo Greegiskii ayaa waxa ay weerar ku soo qaadeen Faraaciniintii midmadabeed reer Kusheyti kuwaas oo markaa deganaa wadanka Suudaan waxaana ay ka qabsadeen magaalada madaxdoodii ee Nabata kadibna reer Kusheyti ayaa waxa ay soo guureen dib magaalada madaxdii taariikhiga ahayd ee Marawe oo ku taala koonfur dalka Suudaan reer Kusheytina waxay soo gaareen ilaa qarnigii afraad ama 400 oo sano kadib dhalashadii Nabi Ciise
reer Kushayti oo deegaanaa Maroodi kuwaas oo ku dagaalami jiray Maroodiyada reer Kushayti oo lagu yaqaanay inay deegaanayeen Maroodi kuna dagaalami jiray Maroodiyaasha ayaa waxa ay dagaalamayeen muddo dheer reer Kushayti iyaga oo ku xoogaystay Marowe oo Maroodiyaasha ku dagaalami jiray oo dagaal ku dhexmari jiray qolooyinka Samatic-tuuga ilaa iyo qarnigii afraad ee miilaadiyada in hadda ku jirno isla qarniga afraad ayaa waxa ay noqotay waqtigii la jibiyay reer Kushayti dabeetan reer Kushayti waxa ay u soo qaxeen dhinaca bariga Afrika iyagoo iska noqday dad reer baadiya oo midba meel iska digay waxaana inta badan ay soo aadeen geeska Afrika waxaana dadka loogu yeeri jiray dadkii xoolo dhaqatada ahaa ee reer Kushayti isla waqtigaana waxa asaasmay boqortooyadii Aksumite ee boqorkii King Asana ee diinta Kiristaanka ka hirgeliyay dalka Ethiopia siina waday boqortooyadii Abyssiniyiinta oo markii hore xukumi jirtay Seba waxaana uu sheegtay inuu asal ahaan ka soo jeedo reer Bani Israa'iil oo boqortooyadii Seba ee waqtigii Nabi Suleymaan alayhi salaam oo iyaduna ka soo jeeda reer Kushayti asalkeedu ayaa boqoradaasi waxa ay xukumaysay dalka Yaman iyo qayb ka mid ah Ethiopia oo la oran jiray Aksum iyadoo Ethiopiaanku boqortooyadooda ay ku abtirsadaan reer Bani Israa'iil sababtoo ah Bilqiso ayaa waxa ay ka soo jeeday Ethiopia sida ay Ethiopiaanku sheegtaan Yamaniyiintuna xataa ay sheegtaan balse Bilqiso waa tii diinta naba lagu sheegay oo ay aaday Qudus oo ay halka kula kulantay Nabi Suleymaan alayhi salaam kadibna uu guursaday ayaa Ethiopiaanku waxa ay sheegtaan in ay uur soo yeelatay oo markay uurka yeelatay ay ku soo laabatay boqortooyadii Ethiopia kadibna ay halka ka bilaabatay boqortooyadii Ethiopia oo wiilkii ay dhashay ee Nabi Suleymaan ka dhalay oo ay Ethiopiaan ka soo jeedaan ku dhashay milkii koowaad loo baxshay wiilkaas oo ay halka ka bilaabatay imbaradoriyadii Ethiopia ama boqortooyadii Ethiopia fadlan la soco qaybta saddexaad dalkeeni maxaa dayaacay maxaa diideen dalkeeni maxaa dayaacay maxaa doonaysan wadinka cidlada dege maxaa doonaysan wadinka cidlada dege damiir xumadiina qarankii ka dhigay daleel haddaad dal shisheeye joogtaan damiir la'aan haddaad dal shisheeye joogtaan damiir la'aan oo aad ku doodaan nabaad baanu nahay diyaar masana diidaan wixii daawo dhali lahaa warya dabiibaya qarankan dugaagu helaa badan baa u galay qabriga qaranka Soomaali dad badan baa u galay qabriga rag baa qaadan waayay gumaysiga quursigii rag baa qaadan waayay gumaysiga quursigii rag baa ka qawaafay asaga qabaanu noqo rag baa ka qawaafay asaga qabaanu noqo rag baa soo qaaday calankeena qaaliga rag baa soo qaaday calankeena qaaliga rag baa qalin dahab taariikhda loogu qoray haddaan qiimayna nimanka hadeer qabsaday haddaan qiimayna nimanka hadeer qabsaday qabuura inay badshaan qasadkoodu yahay qabuura inay badshaan qasadkoodu yahay qabiila hogaamintii qarannimo u qaba qabiila hogaamintii qarannimo u qaba haddayna qashuucin tawxiidka aysan qirin haddayna qashuucin tawxiidka aysan qirin amaysan qoomamay nin qaladkii hore oy galeen amaysan qoomamay nin qaladkii hore oy galeen qaamuuska adduunka maxaa loogu qorayaa